annagu duulaan kuma nihin dawladda federaalka ah duulaan kuma nihin dawlad goboleed waxaanu duulaan ku nahay kaliya khawaarijta banaysatay dhiiganaga iyo maalkanaga kuwa banaystay baan duulaan ku nahay ayaga cadowtinimo naga dhaxayda dad kale cadowtinimo naga dhaxaysaa ma jiraan dadka soo qaylinaya oo miidiyaha ka qaylinaya oo qaarkood mas'uuliyiinta ay yihiin oo qaarkood xildhibaanada ay yihiin ayna doonayaan in dib loo soo doortay xildhibaannimo ay raadinayaan qaarkoodna xildhibaano ay yihiin ama mas'uuliyiin kale yihiin waxaan u sheegaynaa inaysan deegaanka dhibaatada ka jirta aysan raali ka noqon inaysan dhibaatada mashaayikhda lagu hayo ahludiinka aysan raali ka noqon annagu raali ka noqon mayno hadday idaacada ka hadlaana ka raali noqonaynin hadday dagaalka toos soo galaana ka raali noqon mayno waxaan u taagannahay waa inaan garab istaagno culamada islaamka inaan dad shacabkanaga ka difaacno waxa soo weeraray oo xoolahoodii iyo dhiigoodiiba ku soo weeraray inaan ka difaacno dadka aad u moodiin inay yacni dawlad noo yihiin waa u moodayna markii hore dawlad inay noo yihiin laakiin waxaan ogaanay inaysan dawlad noo ahayn marka shabaabkii uu ceel dheer haysto oo habeenkii uu ceel dheer dadka ku olaynayo meel meeshaan oo la yiraahdo jaaw ka sokaydana uu joogo ayagiina ay mashaayikhadii ku duuleen oo bahal joogta oo waxa weeye halka iska joogto deegaankoodii meeshay ku dhasheen ah markay ku duuleen 35 gaari oo tiknika culimada lagu weeraray 35 gaari lagu weeraray tiknika ama ka sii badan waxa weeyaan halkaana lama ogola in la aado macnuhu waa maxay waxaan u fahanay in loo heshiiyaan u fahanay markii in loo heshiiyaan u fahanana anagu waa heshiinay waa diyaar garownay macallimiintii dugsiyada quraanka iyo mudarrisiintii reer Gurceel waa kuwa meeshan la yiraahdo Gurceel waa meeshii al-shabaab lagala diray in lala diriro macnaha laga soo hindisay oo laga soo afrikeeyay dhowr iyo 10 sano waad lagala halgamayay oo ragii halgamaya qaarna ay ku shahiideen qaarna maartay ay wajiisa ay joogan waxa la ogsoon yahay dawlad baa noo curatay inta la yiriyaa maartay hubkanagii iyo ciidankanagii aan ku wareejinay yacni dawlad jaceelka aan u qabno iyo maartay marxabeynta oo qabna dawladii ayaan ku wareejinay federaalka yacni khaasatan galmudug aan ciidankanagii iyo hubkanagii aan u wareejiyay waa waxaan caad la saari karin arrintaas waxay muujinaysaa jaceelka dawladda aan u qabno haddaan culamaa ahlusunna wal jamaa arrintaas markii sida aan u wareejinay waxaan markaas ku talagalnay dugsiyadeennadii iyo darsigeennada inaan u laabanno annagoo isla markaas yacni khawaarijtii intaas sano lala soo dirirahayay ayay maanta ay ka kaafinaya ay ka xigsanay annagoo isla wasaanta waa nasateen warkaa waxaan dhacday markaas ka bacdi waad ogtihiin mashaayikhtii ee qaa'idiinta noo ahaayeen in maartay meeshii ay joogeen ayagoo weli maartay arrintii maartay xabad lagu bilaabo xoog baa looga bixiyay intaasoo sano meeshii amniga ka ahayd oo nabadgelyada ahayd in la hoyo waayo shabaab loo kala cararay ninkii nidoora lagu dilahayo mashaayikhtii markii ay tageen wadankii maartay si balsay galaan say u galaan hal la ogaad ay ku fogaadeen oo wadamadaas ay galaan dadkii maartay wax la amni darro iyo maartay ay arrintaas ay ku soo ziyaaday maartay qalqalisa wadanka ay shabaabka ay soo galeen waxay culimadii ku tala galeen inay dadka maartay naftooda iyo maalkooda inay badbaadiyaan waxaan baaq u diraynaa 3 qolada koobaad waxa waaye wiilasha habruhu dhaleen ee la soo qaadahayo ee lacagta lagu qaadanayo ee dad muslimiin ah muuminiin ah ilaahay raadi ka yahay lagu weerarayo ee iska dhiman haya ee ariga ayagoo ka qaymo xun la iska dildilin hayo dadkaas waxaan baaq u diraynaa waa Soomaali waa walaalahana oo la soo qalday yaan la isku kaana qaldin anagu wahaabiye maahin cadaw maahin ahlullaahi baan nahay dadkii diinta ilaahay maartay atarkeeda oo ka muuqday ayaan nahay waxaan leenahay ninkii la soo qaldayo hadda ka laabo hooyada maartay ku baahan aabaha ku baahan islaanteeda ilmaheeda ku baahan ha ku dhimanin xaq darro waxaan ku dhimanaa naqaana mashaayikhdeena darfaha haysana waxaan rajaynaynaa sida maanta aan garbaha isu haysana anagoo isu haysano mashaayikhdeena la socona nabi maxamedna ay iyagu tafaa ku dhagayeen anaguna aan tafaa ku dhagan inaan la soo bixi doono waxaad ku dhimatay ninkan aqoonow ha nagu dhimanina Allah yaa ku yiraahdo ilaahay ka cabso hadda naga leexo